السلام عليكم صاحبيال كسو دواada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo laagalay hadii aad hore inoo joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow maanta iyo muuqaalkeena sida muuqaalka aad ka soo aragtay thumbnail-ka iyo sidoo kale title-ka muuqaalka maanta waxaynu qaadan doonaa ama aynu baran doonaa ama aynu ku qaadan doonaa party of Google AdSense taasoo ah qaybta ugu muhiimsan muuqaalkeena wuxuu qayb ka yahay Google AdSense hadana waxa uu yahay qaybta ugu muhiimsan waxaan leeyahay yacni qaabka marka website-ka loogu xiro hadii aadan aqoonin qaabka website-ka loogu xiro wax kale oo aad qaban kartaa ma jiro howl kasta yacni meesha ay ka bilaabato inaad taqaan waa very important marka waa yahay muuqaalkeena maanta website-kan ayaynu waxaynu ku xiri doonaa Google AdSense cblifestyle.com la soo boqon kartaa 24 post ya taala pages oo dhameystiran yihiin waa ka marka view blog la dhaho website-kan ayaan rabnaa maanta inaan ku xirno Google AdSense idinkoo markaa ila jaan qaadaya hadii aad rabto qaabka loogu xiro waad nala socon kartaa insha Allah xitaa waxaa jira laba option mid kamid ah waan isticmaali doonaa mid kamid ah waan ku tusi doonaa insha Allah haduu la yiraahdo waayahay inta muuqaalka aan u guda gelin waxaan ka codsanayaa hadii aad weli janaalka subscribe saarin inaad janaalka subscribe inoo saarto sidoo kalena muuqaalka aad inoo la galayso asxaabtaadana aad la wadaagto wax walba marka update ah wax walba marka dhalinyarada ay u baahan yihiin si aad u hesho gambalaalka furo oo marka update walba la soco janaalkan waxa uu furan yahay janaal dhalinyaro oo wax kale lagu soo gudbiyo waxyaalo kale badan oo dadka ay soo gudbi karaan ama aan soo gudbi karna way jiraan laakiin waxaan iskaga deeni dhalinyarada dadka because meel walba waxa ku qurux badan tahay in hal hol loo daayo hadaba maadaama idinka janaalkan ila daayay idinka horumar gaarsiin kara oo heer gaarsiin kara oo share gareeya subscribe saar asxaabta isku waca si marka janaalka meel sare aad u gaarsiisaan waayahay ugu dambeyn waxaan guda galinaa muuqaalkeena waxaan ku sharaxayaa labada option ee Google AdSense lagu xiro optionka koowaad aynu isticmaali doono waa optionkan meeshan earrings ay ku qoran tahay tigi doontaa kadibna create AdSense account ay doontaa kadibna waxaan aan sameey doontaa hadaba optionka kale jira wuxuu yahay in halka searching-ka aad Google AdSense ku soo qorto website-ka kugu horeyso baxda ku dhifato kadib sign up aad kadib meesha hawshada ka wadato address-kaaga waxa aad gashato kadibna aad user xaga ka raad bis hadaba anigu qaabkan ayanu isticmaalanaa yarkaan wuxuu ii soo dirtay address-kii iyo wixii waxaan rabaa inaan ku xiro waayahay marka ila soco halka waxaa leedahay create AdSense account ayaa leedahay isla markii wuxuu ku saari doonaa banaanka oo wuxuu ku geeyay doonaa sign up Google AdSense halka uu jeedo sign up Google AdSense website-kaaga isaga ayaa automatic isku geliyay oo cblifestyle.com halka uu jeedo automatic ayuu isku gelinayaa kadibna halkan yes iyo no macnaha ina AdSense wax la xiriiro update oo cusub iyo xaalad performance-ga ina ku soo gudbin ma jeceshahay mise yani ina maratid hadii aad in fariimo ku soo diraa wixii soo kordhiyaan waa yes alena hadii aad rabina no aleda ani waxaan leeyahay yes wax walba update oo ku sameeysan ii soo dira sidoo kale to halkan waxaan ka dooranayaa wadanka qofka oo address-ka ka kansaday ee aan rabo inaan ugu xiro adigu waxa dooranaysaa wadanka marka address-kiisa ah haysato ma ahan in wadanka aan dooranayo adina aad doorato ha isku qaldin anigu hadda waxaan dooranayaa shakhsigaana la soo siiyay wadanka United States America ama Mareykanka soo taqaan waa kana United States ayaan doortay kadibna halkan waxyaalaha soo qoray yani oo soo baxaya waxay tahay meesha inaad tig saarto oo يعني I have read and accepted أنا هذا terms and conditions أما terms of service كجوجل AdSense وان أقبله أنا هذا وان أخري أو أتكسر توعي هل كان يونايتد إذا صار دورتي هل كان بحق تيجا سارتي هل كان يسح كدورتي هل كان أوتوماتيك أو ست كأوجل ورطة بيج كقوة وأنت مركز مرة وحالة هاي start using AdSense account marka dhado isla markii wuxuu ku diri doonaa laba fariin ayuu Gmail-ka ku diri doonaa mid soo dhaweyn ah iyo mid oo kugu muujinayo yani maxaa la kan publisher ID-gaaga hadda inaad isla fahan ayaan rajeenayaa marka qaybtan inta badan iyada automatic tig isa saarta ma marna isma saarto hadaba labada muhiimka waa kan ayaan buuxinaynaa kan inta badan wuxuu qaataa 6 saac ilaa 8 saac ilaa 10 saac sometimes 24 saac kan markuu tig soo saaro kadib ayaan kan ku xijin doonaa dhig doonaa let's go yani connect site dhig doonaa hadaba marka qaybtan address-ka si aan u buuxino waxaad u baahan tahay inaad dhahdo enter information maskax degan inaad u isticmaasho ayaa lagaga baahan yahay
sidoo kale hadaa meeshan wax ka qalad ugu wiiga maxalli kartid sidoo kale ogaada waxa idin sheegaa meeshan in marka aad buuxinaysan maskaxdigan aad ku buuxisaan halkan waxa ku soo haray laba option ah ku jirto individual iyo business ha ku doornaato fadlan individual shakhsi ha ku doornaato halkan magacaaga soo galay ka tir waxa gelisaa magaca shakhsiga United States jooga ama wadanka ku xiranaysa jooga ee addresska ka caawinaya magaciisa ina gelisaa ayaa looga baahan yahay halkan dabcan waxa sameynaysaa marka magaciisa u geliso addresskii uu siiyay ee qofka uu soo siiyay iyo magaciisa soo qaadanaysaa marka hore magaca ku soo hormaraysaa magaca marka sida koob u soo dhaato kadib waxa amaanaysaa name meesha ku qorantaa oo ku baast garanaysaa saa marka uu baast garayso kadib waxa ku xuga address line 1 inta badan addressku line 1 iyo line 2 waxa muhiim ah line 1ka line 2ga la isku murjiyo marka addresska koowaad ee line 1ka ah ayaan halkan isla gali doonaa idinka oo dayayo waxaynu soo qaadanaynaa addresskii ayaanu soo qaadanaynaa dabcan addresska markaas soo qaadano koobi soo dhahano website-ka ku soo laabano halkan ayaa waxaan ku dhihi doonaa past marka ku dhaho waxaana ku soo bixi doona hadii uu ku jiro gobolkaaga waa toos u gasho doontaa hadii ku jirana waad iska deyn doontaa sida ku deynaysaa waxa ku soo haray marka city ku soo haray meesha marka qofka uu ka joogo waay Mareykanka ama gobolka gali kartaa inaga waxa gelinaynaa gobolka gelinaynaa maadaama Mareykanka oo dhowr gobol uu leeyahay 43 gobol meelaha 42 gobol walba qofku uu ka joogo ayaa gelinaysaa adiga marka hadii wadanka ku xariisanayso kale uu yahay wadan hal caasimad ama adiga xasa oo kale waxay noqonaysaa caasimad geliso laakiin halka hadda waxa geli doonaa gobolka qofka uu joogo ka hoosna waxa geli doonaa isla gobolka ku celinaysaa daartana xaafad ay geli kartaa kullee jooskaas kale marka waxa gelinaa halkan waxa soo gelinayaa qaybtan ayaan soo gashanaa halkan saalka uu jeedo inta ay soo gelinayaa inta markaas soo geliyo oo ku baast gareeyo kadib halka hadan ayaan furayaa halka marka furo waxaan ka raadinayaa midii la ii soo diray still man arkin hadda arkay dabcan sida halkan uu jeedo waxaan soo gashay xogtiisa dhameystiran baan soo gashay individual ah magacii baa ku xiga addresskii baa ku xiga waxa ku xiga yani caasimadii baa ku xigta gobolkii baa ku xiga bosolkoodkii baa ku xiga wixii oo dhan halka igu jira hadda marka waxa ay dhiman kaliya inaan dhaho yani waxa ay dhiman kaliya inaan dhaho submit inaan diro macnaha in review aan u diro marka waxana aad soo samaysato waxa leedahay submit marka aad sometimes code buu ku weydiinaya numberka aad gashatay ayuu ku leeyahay code aan ku diranaa fadlan code-ka gasho marka qaarna la isma weydiiyo wadamada ku xiran hadda wadankan code loo baahan yahay America for example South Africa kale marka aad dooranayso yani lagu muxjina code Kenya hada dooranayso waxa loo leeyahay code geli marka wadamada qaarna code loo baahan yahay qaarna looma baahna kullee marka wadanka marka kugu soo aado ayaa marka ay ku xiran tahay ugu dambeyn code-kii waa la ii soo diray waana geliyay kadibna waxaan dhahay submit waa inta kaliya fadlan hadii aad rabto Google Adsense si loo xariisto muuqaalkan waad kaga jahal bixi doontaa kaliya intaan soo sameeyay ayaa soo sameynaysaa kadibna marka code-ka aad tagto code-ka marka meesha aad gelis lagu soo diro submit ayaa dhigi doontaa qaybta marka addresska ah waxa ay geli doontaa wax la yiraahdo check-in kadibna saacad 24 saac ka yar iyaga tibka ugu soo saari doona halka marka lagu soo saaro kadib ayaa waxa dhigi doontaa qaybta hoose connect side ay ku qoranta ayaa latest go dhigi doontaa kadibna request ay dhigi doontaa waa inta kaliya wax weyn ma ahan qof kalena insha Allah sidoo kale waan u xareyn doonaa qaabka kale ayaa idinku tusi doonaa labada option inaad aragtaan ayaan jeclahay marka waayahay marka waxaan rajeynayaa janaalka in subscribe aad saartay sidoo kale muuqaalka aad la gareysay asxaabtaadana aad la wadaagtay 1 iyo 200 konton 500 inta aad awoodo mar walba waxaan u taaganahay in dhalinyarada aan caawiyo wax walba marka update ah wax walba marka qof uu ka faa'iideysan karo in marka aan la wadaago AdSense waa meesha ugu wanaagsan marka dhaqaalaha dadka ay ka sameeyaan malaayiin qof boo bishii lacag siiya Soomaalida ugu badan haday naqato YouTube haday naqato website haday naqato meel kale oo AdSense waa marka wax inta lagu soo koobi karo maan hadaba marka waxaan rajeynayaa in marka aad wixii dhan hagaajisay hadii aad doonayso website quality oo professional ah wax walba laga caawino xitaa AdSense si free lagu dalbayo hadii aad doonayso waad nala soo xiriiri kartaa waadna weydii kartaa ugu dambeyn waxaan ku leeyahay tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh